السلام عليكم ورحمة الله وأنا السلام دمانتين ولا الله وحن رجينا إن العاف ما القبطان ملك استود كنوا شهين ما أنتي وحن ربي إن كهلا موضوع غير آدم مهمة وأنا ودنا أنفعاي أدون كان آخر دينا موضوع أو دad kan ugu hareereysan iyo fursadaha muhiimka ah oo aan ka faa'iideysan karno Ilaahay uu nasiiyay oo aan dayacnay fursadahaas waxaa kamid ah markii aad aragtid qof u baahan in la caawiyo oo caawimaad u baahan laakiin si aan ku weydiisanayn caawimaadii ha ahaato qaraabadaada ha ahaato deriskaaga ha ahaato qof dariiqa aad ku aragtay oo kaleeto oo dhibaataysan dadkaaseeto u baahan gacan qabashada iyo in wax la taro laakiin si aan ku weydiisanayn oo aad wajiyadooda ka dheehanaysid markaad aragtid in ay yihiin dadkan dad gacan u baahan in la siiyo dad u baahan in la gacan qabto hadda waxaa jiray waagi aan imid magaalo yar oo hadeertaan aan ku noolahay waxyaabo badan oo hadda aan ogahay waqtiga aan la joogo ma aan ogeyn way iga qarsoonaayeen because magaalada weyn marka aad joogtid dad inta badan waxaa degan isku filan ama middle class ayaa degan waa laga yaabaa inaad ku aragtid dariiqa hal qof laba qof oo iska baahan oo timi ee raama noqdeen oo darbiga iska jiifo xitaa hooy aan haysan balse inta badan dadkan ugu hareereysan marka magaalooyinka waaweyn joogno waa dad wax gacan qabasho aan u baahnayn inta badan ayaan ka hadlayaa majority-ga inta badan waxaa la dhahay majority leads the minority markii meel aad joogtidna dadka ugu badan oo meeshaas ku nool dhaqankooda iyo siday u nool yihiin ayaad waxaad u malaynaysaa meel kasto aad ku nooshahay in noloshaas taad u malaynaysaa hadeertaan markii aan aado meel oo kaleeto waxaa laga yaabaa dariiqa inuu fadhiyo qof aan waxba haysan oo hooy ah xitaa haysan oo dan yaro oo gaajo maalmo ku joogay ayaa waxaa laga yaabaa inuu fadhiyo dariiqa meesha aad maraysid gacanta ku soo taaganaya qofkaas gacanta markuu qofkaas ku soo taagto waxaad arkaysaa dadka dariiqaas marayo dhan 99.9% way ag marayaan hal qof oo u istaagayo xitaa shilin siinay ma arkaysid qofkaas dadku dhan xawaare ku ag marayaan way speed bay ku socdaan qofkaanet waxaa laga yaabaa inuusan xitaa maalmo uu waxba cunin laga yaabaa gaajo ay nafta uga dhacayso qaar ayaa laga yaabaa dariiqsi u fadhiyaan in xitaa naftaba ka dhacdo marka pointigayga meeshan aan ka leeyahay waxaa waaye qofkaaseeto waxaad awoodaa boorsada lacag kugu jirto obviously boorsada lacag kugu jirto inta badan waaye anaga dumar ahaan hadda iska hadlayna anima aqaan wiilish xitaa jeebkay ku wataan wax shaaxi muqaadaha uga cabiyaan way gaari bay raacayaan qof jeebkiis u maran yahay way yartaha dadka naga middle class-ka marka qofkii waxaad arkaysaa waa la wada ag maraya qofkana waa qof baahan waaye والله بالله فرصة داس وفرصة آد وينو عند يعني وحالة مرك قار أنا مرك هوريت وان إسكا ديل سنجرو وح عايب إسكال كهيد مرك قار واسك أجمر جرا كاس إن لدتك مجالات الجو رن طريق قاس رن حاجة بيني لا تنقف فردو مرك قار سأسع تداد ميل فوق آد سو كلات أنت سقفا لك ولا أنت كل واد وحب مسين كرتد لكن سبحان أبو ده حلقف إنك كفر حسين مع أنتاس حلقف متى كلاتو dadka wax siinaya dadkaas ay markii akhta si fiirsid waxaad arkaysaa qof ayaa 10 shilin siinaya 10 shilin maanta wuxuu goynayaa wadankan aan joogo aniga xabad moos ah waa hal xabo moos ah qof dhan oo baahan oo weyn wax taa laga yaabo inuu adig ka weyn yahay oo haddana qof weyn urale ama qof baahan wuxuu rabo ha ahaado ama ha kula kaad ama ka weyn qofka haduu yahay qof baahan waa qof baahan baahiduna ma aragtay wallahi waa subhanallah ilaahay wuu ku itixaamaya dadkaas ay waa dad itixaaman waay dadka waxaystana waa dad itixaaman adinka xitaa itixaana ku jirtaan marka qofkaas hadii aad wax siinaysid aniga dhiirigelin iga tahay qofkaas ay tahay hadii aad wax siinaysid fadlan isku day inaad wax fiican siisid at least hadii ugu yartaa xitaa $1 hadii aad awoodid $5 hadii aad awoodid $10 ilaahay daraadi baan ula baxayaa waxaanayto niyadaadana waa muhiim qofkii niyad samila imaado oo niyadiis ay wanaagsan tahay oo ilaahay niyadu fiirnaya amal kasta oo la qabto everything waxa la yiri inama al-a'malu binniyat hadiiskaas intiina badan waa ka seesaan oo inama likulli imri imaana wa faman kana hijratuhu war hadiisku wuxuu u dheer yahay laakiin se qof kaste niyadiis ilaahay daalacanaya hada u bixisid waxaanayto dad daraadood iyo dad oga haybayso ilaahay agtiisa wax khayr ugu matagaysid dadkaas baa maalmo ku amaanaya khalaas meeshaas ay wixii kaaga harayaan marka niyadu waa muhiim dadkaas fadlan aniga dhiirigelin iga tahay fursadaas waa fursad aad u weyn
nafteyda kula dardaarmaya marka koobaad marka labaadna waa adinka in ku dhiirgelinayaa dadka nagu hareeraysan daris ha ahaadaan kharaaba ha ahaadaan sadaqadana waxaa ugu khayr badan midda dadka kugu sakeeya aad siisid laakiinse dadkaaga haddii aad intaad wax siisid aad awoodid inaad dad kale wax tartid khayr wallaahi wax ka khayr badan ma lahan dadkana waxaa ugu khayr badan kan dadka anfaco dadka anfacaadka u leh muhiimyadanadu muhiim ma ahan in maaragtay ayaanta guryo iskugu faanayaantaan kuraas noocaanaha ii taalo dhar noocaanaha xiranahay tv noocaanaha ii yaalla marka qaar waxaaba isleedaha dadkaanita dad kale timi unoolyihiin is dhehaysaa sida loo dhaqmaayo ama dhar aan ku waalano in fact xanuunkaas aniga waa qabay ilaahay uu iga daaweeyey alxamdulilah shopping addicted aku ahaa shoppingka inaan wax soo gado maanta dhan laakiin alxamdulilah maanta marxaladan kasoo gudbay waaye marxaladan hadda taaganahay maahan ilaahay ugu shukrinaya fursadaas aan ka faa'iideysano qofka gacanta kuusoo taaganaya ha agmarin hal qof ba ha ahaadee ka farxi kulligood kan wada farxin kartid hal qof xitaa ha ahaado ka farxi sanadka cusub hadeertaan insha allah aan qorsheysano dadka naga horta wadanka naga gaajo abaaro fatahaado markii roob ku imaadaan waxyaabo badan oo musiibooyin iska jiro ilaahay naga kor qaado meel kasto aad joogtid ama joog Europe joog ama meel ama Kenya joog ama waxa dhahda ama Africa weyntii wadamadooda joog wadan kamid ah meesha aragti joog dad baahan ma weynayno kulleyba waqti waxa la gaari doonaa dadka waqti waxa la gaari doonaa la weyn doono wax la siiyo qof wax la siiyo xitaa la weyn doono oo dadku dhanba ay tujaar noqonayaan marka hadda fursadaaneed aan ka faa'iideysano insha Allah hadartaan magaaladan yarta oo aan joogo ilaahay ma had sugnaatay dad aad u wanaagsan xariis badan isku naxariisanay de adiyaabaysi hadaa aragtida hadartaan ku nool waa dad dhiirigeliyay aniga 90 degrees isbeddelay hadda 180 degrees hataa 90 maahan because marka aragti dad khayrka jecel masaajid wax u aruurnaayo dad baahan wax u aruurnaayo alxamdulilah dad aad u far badan ayaa arka wax loo aruurnaayo marka fursadahaas oo kale waa fursado qaali waaye waarkaaga wax u niyeyso tacadud niyah hadaa la imaadid inaad adiga walaalaha abtiyaasha awooyaasha wixii dhinto dhan inta ka soo farcantay xitaa u niyeysan kartaa wax yarka aad bixinaysid ilaahay intaas oo dhan ayaa u niyeystay awlaadeyda aniga kulli ilaahu anagoo dhan ba ajirka khayrka nasi waxaan yarka intaana ilaahay awoodaa ilaahu intaan barakada dhaadid ilaahay agtiisa wax weyn wax kasta waan niyada daal imaantay qof halka yaab inuu milyan bixiyo qof halka yaab inuu $10 bixiyo ilaahay agtiisa ay ka weynaato xitaa kan wax yar bixiyo sababta oo wax laga yaab inuu niyad wanaagsan la imaado oo ka niyad wanaagsan yahay qof kaleeto marka fursadahaas aan ka faa'iideysano insha Allah ayantaan muuqaalada saana u duubaya xogaa codan saaraya ilaa inta aan awoodo inaan muuqaal caad u soo duubo dhiirigelin iga tahay aan ka faa'iideysano aan gacan qabano qof kasta oo baahan maanta in la gacan qabto dadka qaar ayaa waxa laga yaabaa inay wax yar oo gacan qabad u baahan yihiin wax yar aad u yar oo gacan qabada inta yarta aan gacan qabano ilaahay uu nagu barakeenayo cumriga nagu dheeraanayo waanu lagu dambi dhaafaya perfect manihin markastaba khaladan galena dhiiqaad waa kula jirnaa so as much as aan awoodno aan dadka caawino ilaahayna agtiis waxaan ka noqonaynaa dad karaamo iyo khayr leh kulli intiina dad dhalinyaraatihiin 90% waxa waay dadka daawada muuqaalada aan soo dhigo dad muuqaalada inta ugu badan oo daawata waa dad dhalinyaro ah meeshaan aan soo galiyo marka qofka markuu dhalinyaro yahay waxa uu bixisanayo oo khayr ah iyo cibaadadka uu la imaanayo maartay way ka qiimo badan yihiin ilaahay agtiisa marka uu qof weyn noqdo cibaadada uu la imaanayay midda kaleeto oo cajiibka oo rabay inaan la wadaagano waxay ahayd just inaan isbarno anigana sanadka hore ayaan bilaabay qof marka uu wax wanaagsan uu ku qabto oo kaleeto inaad tip aasiisid tip waxa waay hadda maqaayad oo kaleeto joogtaa maqaayad markii aa imaatay cunta lagu keenay wax ayaa lagu keenay qofkii lacagtii baad bixinaysaa menuga iyo wixii lacagta u dhexgelinaysaa just shilimaad yar xitaa inaad ugu reebtid qofka deeqsinimada waa wax deeqsi qofka deeqsiga markaste uu ka wanaagsan yahay uu ka sharaf badan yahay nabi sallallahu alayhi wasallam wuxuu ka maangeli jiray ilaahay maartay ducadii cajiibka ahayd allahumma inni a'uudu bika min al-hazan والبخل ويكجرتي والجبن دعاء أديك وحي عجيب دعوين كاسيتو مركا بخلنو إلهي كمين قدر النبي صلى الله عليه وسلم سيحون تيفير بالأديك مركا أن إصبرنا إن عن ضدك وح سينو إن عن ضدك نجدب أقول علينا وح
nis abtiga ayaa markasta wuxuu igu oran jiray raxmo wax kasto adduunkan aan shaqaysanaba saxan bariisa ka badan ma cuneyno marka soo xasuustana waa la yaabaa wallahi khayr aan ku dhaafay intaas aan ku ekeysiinaa